waxa qaar badan oo inaga mid yihiin la kulmeen intay noolaayeen qaar ka mid ah afafka badan ee ciyaalku aliftaan si ay isugu afkartaan islamarkaana dadka kale uga qariyaan hadba mawduuca ay markaa ka wada hadlayaan. afafka waxaa meelaha qaar looga yaqaanaa geyga soomaalida af shimbireed ama af jinni, waayo waa luuqad qofka aan garanayni isagoo soo soocaya haddana aanu si toosa u fahmin. haddaba waxaa jirta adduun weynahan aynu ku noolnahay bulshooyin fara badan oo aliftay luuqado sir ah oo iyaga u gaar ah si ay isugu afkartaan marka ay ku dhex jiraan bulshaweynaha kale. luuqadaha aynu ka faalloon doono sida luuqadaha adduunka lagaga hadlo ee waaweyn ma aha luuqado qaatay waqti fara badan iyo bulshooyin isu tegay si luuqadaasi u noqoto luuqad goonideeda isu taagta. hase ahaatee luuqadaha sirta aynu ka faalloon doono waa luuqado laga soo deegtay luuqadaha waaweyn iyagoo oo la yaro bedelay xarfaha laysku badbedelay xagga dambe lagaga yimi ama lagu daray xarfo dheeriya. luuqadahan soo sheegnay waxaa abuuri kara koox isu tagtay amaba qof keliya. sababta ugu weyn ee qofkaas ama kooxdaasi ay u abuurayaan luuqadan sirta ahina soo sheegnay waa inay uga qariyaan bulshada kale waxa ay iyagu dhexdooda ku wada hadlayaan. qarintan dambe waxaa sababi karta bulshadan luuqada sirta ah unkanaysa oo la takooray ama laga tiro badan yahay ama mararka qaarkood waa mid loo sameeyey si kaftan iyo faakahaysi ah. haddaba kusoo dhawaada mar kale fiideo cusub oo ka faalloon doona luuqadaha sirta ah ee lagaga hadlo daafaha dunida, inagoo fiideoga halkiisa dambe ku qaada dhigi doona luuqadaha sirta ah ee lagaga hadlo geyga soomaalida dhexdiisa. Pic Latin waa luuqad laga dheegtay kelmadaha ingiriisiga oo la isweyweydaariyey kadibna lagu daray labada xaraf ee I ama A. luuqadani waa mid lagu maadsado oo dadku hadba si ay u isticmaalaan. luuqadani waxay leedahay shuruuc fara badan sida kelmadaha qaarkood in xarafka ugu horeeya loogu dambeysiiyo kadibna la raaciyo A. sida ka muuqata tusaalayaasha waxaa la moodaa inay tahay luuqad gebi ahaan ka duwan ingiriisida inkastoo dhowr kelmadood la isweydaariyey. alti ama ulti iyaduna waa luuqad kale oo sir ah oo ay ku hadlaan budhcad iyo tuug ku nool West Bengal oo laga soo dheegtay luuqada Bengaaliga. luuqadan sida muuqata waxaa loo alifay si looga qariyo wadahadalada kooxda dadyaga kale ay ku jiraan booliiska iyo dowladdu. luuqadan waxay isugu jirtaa kelmado xagga dambe lagaga yimi, qaar la isu badbedelay meelihii ay ku jireen iyo qaar micnihii lagu yaqaanay gebi ahaan laga bedelay oo micno cusub loo sameeyey. Kripsera waa luuqad kale oo sir ah oo isticmaalaan dabaqad budhcad ah oo ku nool wadanka Poland. luuqadan sirta ah waxaa khaasatan laga isticmaalaa jeelasha wadanka. luuqadan sirtaahi waxay jeelasha dhexdooda ay ka tahay wax lagu faano ama lagu hanto sharaf oo ruuxii aan aqoon loo aqoonsado inuu yahay daciif. waxaa laga soo dhigtay luuqadan dhowr luuqadood oo la isku dhafay micnahoodiina la bedelay sida Yidishka, Boolishka iyo luuqada Jarmalka. hase ahaatee saameynta ugu badan waxaa luuqadan ku leh luuqada Polishka. maxaabiista ku hadasha luuqadani waqtiga ka dambeeya luuqadooda waa ay bedelaan iyagoo ka in gaadhka ilaalinaya ay fahmaan. tani waxa ay sababtay in jeel kasta uu yeesho lahjad u gooni ah oo ka yimi luuqadan sirta ah. liid waa luuqad qoraaleed internetka dhexdiisa laga isticmaalo. luuqadani ma aha mid lagu hadlo, hase ahaatee waxa ay ku dhisan tahay qoraal ama higaada luuqadaha kale. sida aynu soo sheegnay, luuqadan oo ah luuqad qoraaleed si looga dhigo luuqad sir ah waxaa dadkii alifay ay ka tegeen higaadii caadiga ahayd ee luuqadaha qoran iyaga oo halkii kelmadaha ku bedelay kelmado iyo xarfo iyo calaamado isku jira. luuqadan sidaynu soo sheegnay waa luuqad qoraaleed laga dhex adeegsado internetka dhexdiisa iyo mareegyada dadyowga geemiska ciyaar ay isugu yimaadaan, waxaana sida luuqadaha kale ee liiskan ku jiray abuuray koox doonaysa inay qariso waxa ay ku wada hadlayaan. liid waxaa la sheegaa in la sameeyey 1980-dii kolkii isticmaalka kombiyuutarku hana qaaday, waxaana ka dambeeyey unkankiisa luuqadan koox hakaris ah si ay uga hortagaan in loo fahmo jaadkooda ama wadahadalkooda. kelmadda liid waxa ay ka timid kelmadda ingiriisida ah ee elite oo micnaheedu yahay xul ama heer sare, taasoo tilmaamaysa in dadka luuqadan yaqaan ay isbidayaan inay ka maskax badan yihiin ama ka heer sareeyaan dadyagoo kale. liid waxay ku dhisan tahay qoraalka sida aynu soo sheegnay oo maaha sida luuqadaha kale ee liiskan ku jira mid leh dhawaaq iyo isticmaal maalinle ah. nuushu iyaduna waa luuqad kale oo ah luuqad qoraaleed sir ah oo ay ku wada hadli jireen dumar ku nool koonfurta Shiinaha intii u dhaxaysay qarniyadii 15aad iyo 17aad. dumarkani halkii ay ku wada xidhiiri lahaayeen qoraalka luuqada Shiinayska ee caadiga ah ee dadka oo dhan isticmaalaan ayaa waxa ay samaysteen luuqadan iyaga u gaarka ah. waxaa la sheegaa in sababta luuqadan qoraalka ay dumarkani ay u unkeen ay ahayd kadib tacadi fara badan oo ay kala kulmeen bulshadooda iyagoo bulshadaasi dumarka beriga u diidi jiray inay wax bartaan amaba ay wax qoraan. fartan sirta ah inkastoo haatan aanay cidna adeegsan haddana waxaa la sheegaa inay tahay far qoraaleed ka fudud kana wanaagsan far qoraaleedka uu Shiinuhu caadiyan isticmaalo.
geyigeena laftigiisa waxaa laga isticmaalaa ama laga isticmaali jiray luuqado ka farcamay af soomaaliga oo la bedelay. bulshada qaarkii waxa ay afkan u taqaanaa af jinni, meelo kalena waxaa looga yaqaanaa af shimbireed, waxaana badanaa isticmaala ciyaalka yaryar si dadka waaweyn ama ciyaalada kale aanay u fahmin hadaladooda. af shimbireedka sida qaar badan oo inaga mid ay hore u maqleen waxa uu ka samaysmaa kelmadihii caadiga ahaa oo la dhex geliyo xarfo sida xarafka fa, ba, ja, ma iyo xarfo kale. tusaale haddaynu usoo qaadano sida loo sameeyo jumlad ka mid ah luuqadan sirta ah af shimbireedka: wafaxafaan dafoona faya faamafaanta fa ifina faan kufuha fad lafo lofuuqa fad ifisifir afah ofoo lafaya fidhafah dafo afaf shifimifirifeed. ruuxa af soomaaliga yaqaana marka uu maqlo luuqadan waxaa moodayaa inay tahay luuqad kale, hase haatee marka uu u fiirsado waxa uu arki doonaa in xarfihii caadiga ah ee kelmadaha loo dhexaysiiyey xarafka fa. waxaa la yaab leh in tabta af jiniga ay ciyaalka soomaalidu isticmaalaan iyadana looga isticmaalo meelo kale oo dunida ka mid ah. marka laga yimaado af shimbireedkaanu kor kusoo xusnay, waxaa jira afaf kale oo geyga soomaalida laga isticmaalo oo u muuqda inay yihiin afaf sir ah. afafkan waxaa ka mid ah af ay ku hadlaan dad dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalooyin ka mid ah kuwa ku yaala dhulka soomaalida waqooyigeeda. afkan sida af jiniga aynu kor kusoo xusnay waa af ay dhalinyartan u isticmaasho marka ay doonayaan inaan la fahmin, waxaana ay ku magacaabaan ilaamos. sida aad ka arkaysaan magaca afkani waa af soomaaligii caadiga ahaa oo dibdib loo akhriyey ama kelmadihiisa la isweydaariyey. talayaabka igu dhalisay ayaa waxay tahay haddaba in aan ogaaday in afkani uu yahay mid aad u facweyn oo qoraaga soomaalida dirsin cabdalla cumar mansuur buuggiisa taariikhda bulshada iyo afka soomaalida ayaa waxa uu ku sheegay inay jiri jireen dad ku noolaa dhul ka mid ah saldanadihii cadal iyo ifad ee ka hana qaaday geyga soomaalidu degto waqooyigeeda. isagoo soo xiganaya seruli oo ah aqoon-yahan talyaani ah oo dirsay soomaalida ayaa waxa uu sheegay in xarluhu ay ku hadlaan afkan aynu ka faalloonayno ee sirta ah, waxaana ay u badan tahay inay yihiin kuwii afkan iyagu ikhtiraacay. xarluhu haddaba sida ku cad buugga waxa ay ahaayeen berigii axmed gurey dad gooni ah kana soocan soomaalida kale, taasoo ay caddaynayso in buuggii futuuxulxabash u kala saarayo ciidamadii axmed gurey soomaali, xarla, malasay iyo carab. dadkan haddaba qadiimka ah waqtigan iyagoo iskood u taagan ma jiraan, hase haatee waxaa cad inay ku dhex milmeen bulshooyinkii kale ee muslimka ahaa ee ku hareeraysnaa sida soomaalida iyo canfarta oo weli laga dhex arko qabiiladooda magaca. waxaa haddaba macquul ah in kadib markii ay ku dhex milmeen xarluhu bulshooyinkan kale ee uu afkoodiina lumay ay samaysteen luuqadan is-afgarashada ah marka ay ku dhex jiraan dadka kale. jaruli waxa uu tibaaxayaa in kelmadaha soomaaliga ah ee la yaqaan ay dibdib u akhriyeen ama ay isweydaarin jireen, sida inay yidhaahdaan bagadh, dise, xamaa oo gebigooduba ka yimi kelmada soomaaliya oo dibdib loo akhriyey ama kelmadihii la isweydaariyey. afkan xarlaha ay ku hadlaan ee ilaamoska imika geyga soomaalida looga yaqaano maaha afka keliya ee sirta ah ee lagaga hadlo geyga soomaalida, hase ahaatee waxaa jira in qabaa'ilka soomaaliyeed ee la yidhaahdo waa laga tiro badan yahay inay iyaguna leeyihiin afaf ay isku fahmaan dhexdooda oo aan dadka kale sidaa usii dirsin. isla buuggiisan cabdalla cumar mansuur waxa uu ku sheegayaa in luuqadahan sirtahay ay ka kooban yihiin erayo af soomaali ah oo la farsameeyey. tusaale waxa uu usoo qaadanayaa ereyga san oo lagu bedelay falka uu qabto, sida in la yidhaah uriye, ama in erayo asalkooda soomaali ahaa xarfahooda la isweydaariyey, sida in fayowdahay loo qoro ama loo akhriyo yafantahay. erayo af carabi asalkoodii ahaa oo iyagana la bedelay, sida in lo-da lagu magacaabo albakar ama bacayr. erayo qadiim ah oo af soomaaliga kala lumiyey ama raadadkiisii laga sii arko kelmadaha qaarkood sida baxrin ama baaran oo micnaheedu yahay hadal. af soomaaliga kale waxa uu weli ku hadhay micnaha ka baaraandeg oo ah ka fiirsasho, iyo erayo kale oo aan la garanayn asalkooda. aqoon-yahanka caddaanka ah ee JWC Keck oo qoray buug ku magac dhawan A Grammar of the Somali Language ayaa waxa uu dhiganihiisa ku xusay tusaalahan oo uu ka helay oday ka mid ah qabaa'ilka aynu soo sheegnay. kalantankeena igula kalim reer miyida yayna dhaadine oo micnaheedu yahay afkeena igula hadal reer miyigu iyaysan na fahmine. maanta intaas ayay nagaga eg tahay barnaamijkeenu, waa sidaa iyo ismaqal dambe insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.